السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري هذا مركلة دب كيفكس كلاسكيني نو سعودية أها forever moral متقانا كورسكيني soo mentorshipkeenan waxaynu mataqaanaa aynu kusoo qaadanayna guud ahaan min bilow ilaa dhammaad mataqaanaa forever moral so insha allah caawa waxaanu qaadan doonaa cashar kale oo aad muhiim u ah casharkaasi oo isna la yidhaahdo change in state of delivery ama OB aynu u naqaano haddaynu nahay forever model so haddaba order block ama change in state of delivery markaynu joogno forever maxaynu u aqoonsanaan doonaa halkeebaynu noogu yeedhi doonaa OB ama change in state of delivery magaca ugu saxsan inta badannana waxaynu isticmaali doonaa waa maxay waa CSID ama change in state of delivery so change in state of delivery waa tusiye ama indicator ina tusinaya kala wareega suuqa horta waa number kow taayna oo haya change in state of delivery ama OP waxaynu u aqoonsan doonaa kandhalka liquidity-ga qaada halkaana laba minoo haysaan waa maxay OB kandhalkeenu ama CSI kandhalkeenu waa maxay CSID kandhalkeenu waxa weeye kandhalka liquidity qaada so liquidity waa liquidity xagga baynu ku arki doonaa waxaynu u kala qaybin doonaa waxaynu u kala baxaa laba qaybood oo kale ah bullish change in state of delivery ama bearish change in state of delivery so saddexdaas u kala baxaa marka haddaba waxaynu halkan uga baahannahay inaynu kasii calaamadsanno waxaynu uga baahannahay kasii calaamadsanno horta kow inaynu xagga dambe iskula fahanno liquidity-ga uu kandhalku qaaday waa liquidity-ge ama liquidity-ge baynu calaamadsanaynaa iyo kala wareegga muxuu siduu u caddaynaya kala wareegga so labadaas baynu u baahannahay inaynu xagga dambe si deeply aan isugula fahanno labada muhiimadeedu qabtaana waa labada ugu muhiimsan u qabtaa waa labadan tasaddexaad soo raacdo waa maxay waa intrigeena soo raacdo so laakiin labadan bayn horta calaamadsanayna islaarkan haddana aan joogno okay markaynu nimaadno haddaba shuruudaha looga baahan yahay change in state of delivery-gu shuruuduhu ku samaysma waa saddexdaa shardi kow waa in liquidity la qaadaa waa number kow laba waa in aad calaamadisaa kandhalka liquidity-ga qaaday openkiisa so hadduu kandhalku haa sida cashirka hore kusoo qaadanay kandhalku markuu yahay bearish muxuu sameeyaa open high soo maaha iyo low iyo closekiisa iska daa markuu bullishka yahayna waa maxay wuxuu sameeyaa open sorry markuu yahay bullishkana muxuu sameeyaa bullishka wuxuu sameeyaa open high then low close soo ma markuu bearishka yahayna waa maxay open iyo low soo ma open buu sameeyaa then muxuu sameeyaa open highgiisii lowgiisa and then closeka so haddaba halkan u soconna waa maxay waa openkiisa markuu yahay kandhalku kandhal bearisha yahay waxaynu calaamadsanaynaa openkiisu halkan hoosaa markuu yahay kandhalku kandhal bullishana waxaynu calaamadsan doonaa highgiisa masla fahna halka kastaxad waa maxay waa in kandhalka body ah ku dul xidhma kandhalkiina haddaba markuu san ahaa kandhalkii liquidity-ga qaaday halka daba iskula fahmi doonaa liquidity-ga la qaaday tusaalahan kan kusoo waraynaaba kandhalkiini waa kan soo maaha change in state of delivery-giini waa kan marka waxaynu nidhi waa ka highgiisii halkaasaynu maxay ugu wacaynaa change in state of delivery halkaasuu inoogu calaamsiin waxaynu u baahannahay haddaba kandhal intuu soo furmo uu inoogu dul xidhmo maxay change in state of delivery-geenna bannaankiisa inuu ku xidhmo weliba body inuu ku xidhmo week uma baahnin hadduu intuu week ku qaado haddana meelahan ku xidhmo no uma xisaabinno ma odhanayno waa lagu kor xidhmay ma odhanayno waxaynu u baahannahay kandhal full body ku dul xidhma oo bannaanka kandhalka kale open pricekiisa korkiisa ku xidhmo haygiisa maha hadda wiiggiisa ha eegin bodigiisaad calaamadsanaysaa bodigiisa inuu kandhal ku dul xidhmaad sugaysaa dan kandhal ku dul xidhma baynu mataqaanaa kasi trade doonaa laakiin still waa maxay OB kandhalkeeni waa kan ama change in state of delivery-geeni waa kan yaa ka dhigay marka inuu change in state of delivery inuu noqdo waxaa ka dhigay kandhalka labaad so markaa labadan kandhalay ma kala hadhaan ma fahanteen kandhalkani waa maxay isagu waan calaamadinay laakiin calaamadan yaa ansax ka dhigay waxaa ka dhigay kandhalka labaad taas weeyaan kan kale bearishkiina waasna waa lamid waxaad calaamadsatay halkanaa tiri in lagu hoos xidhmo dadna kandhal baa soo furmay week buu ku qaaday guduhu ku xidhmay ma xisaabinayno ma odhanayno mataqaanaa OB kandhal baa dhacay ma odhanayno laakiin maxaan rabnaa in banaanka laynagu xidhmo OB kandhalkeena ama change in state delivery kandhalkeena in banaankiisa laynoogu xidhmo baynu doonaynaa markuu full body kandhalka uu ku xidhmo banaankiisa lagu xidhmo markaasaynu leenahay change in state of delivery baa dhacay ma fahanteen okay haddaba waa kan OB isagoo bullishan eegayna pricekeena san u socday soo ma lower low and then lower low buu sameynay soo ma lower low buu sameynay halka aynu rabno inuu ka dhaco kala wareegu waa halkan so waxay joogtaa beer value gap bay joogtaa kasoo qaad tusaale ahaan oo kale so waxaan rabnaa inaynu pricekeena halka ka buy garayno
waayo suuqa meesha badanaa laga sugo reversalku waa point of interest inuu kuu jooga soo ma sayn soo qaadanay point of interest ganana waxaynu kasoo dhiganay fair value gapka ama internal range liquidity-ga okay price-kiina hadaba liquidity buu qaaday soo muu qaaday liquidity-gii waa kan liquidity-ga la qaaday oo calaamadaysa marka lowgii la qaaday waa kan so lowgaa la qaaday baad calaamadinaysaa markaad lowgii la qaaday aad calaamadiso waxaad leedahay candlekee baa qaaday so candlekanaa qaaday soo maha iminka marka waxaa qaaday waa candlekan okay candlekeenii qaaday markuu qaaday liquidity-geenii baynu waxaynu calaamadinaynaa candlekii liquidity-gan qaaday openkiisa maadaama bearish yahay kani mid hoos soo socda yahay waxaynu calaamadinaynaa maxay banaankiisa leanna waxaan rabnaa in banaankiisa laynoogu xidhmo waxaynu isticmaalanaa imika waa maxay waa kani waa maxay waa bullish ob ama bullish change in state of delivery weeyaa marka okay price-keenaynu sugaynaa marka in laynoogu soo laabto in banaankiisa laynoogu xidhmo sorry in banaankiisa laynoogu xidhmo in sugayna candle baa inoogu xidhmay waa kaa ku xidhmay maxay banaankiisu ku xidhmay markuu banaankiisa ku xidhmay maxaa dhacday halkaasaad intri ka gelaysaa markaa adigu halkaasaad intri ka gelaysaa so haddaba candlekani markaynu joogno forever model waa candleka inoogu muhiimsan inaad aad u fahantaana waa inoo muhiim waayo candleka wuxuu inoo buuxin doonaa meelo badan aynu ka heli jirnay tusahaan kale msski ama market shift structure-kii iyo wuxuu inoo buuxinayaa kale intrigeenina wuu inoo samaynaya oo candlekani waa maxay intrina isagoon ka dhiganayna wuxuu kale inoo buuxinaya waa confirmation buu inoo samaynaya waa maxay waa candlekeeni confirmationka inoo samaynaya so intaasoo shaqo inoo qabanaya candlekani candlekan ha dhayalsanina so halkaa candle baa waxaasoo shaqo ah inoo wada qabanaya dhammaanteedba okay candlekeeni iminka waa maxay marka koowaad waa kanoo waxa dhacday liquidity-gii baa la qaaday waxaynu aragnay in la qaaday confirmation baynu ka sugayna waxaa idin sheegaya shuruudaha inta shardiya imika sheegayba saynu uga raadinayno waxaynu ka sugaynaa confirmation ka sugaynaa waa maxay inuu reversal dhacayn rabnaa soo ma reversalkeena qaabkaynu ka sugayna waxaynu ka sugaynaa in banaankiisa laynoogu xidhmo so haddii banaankiisa ama korkiisa candle body laynoogu xidhmo maxay inoo xaqiiqowday reversalkii inuu dhici doono baa inoo xaqiiqowday haddaba marka labaadna waxayn rabnaa waa maxay waa sidoo kale muxuu inoo noqonaya change in state of delivery baa lagu yidhibo qaabkii ama qulqulka jihada qaabkii dhinacay u socotay mooy dhanka kalu candleka u rogaa horto ma fahante so candlekeenan markii banaankiisa laynoogu xidhmay waxaynu nidhi waxaa dhacday maxay reversal oo ama maxay market shift structure baynu dee leenahay soo ma bahalaa ka dhacday baynu leenahay and then candlekeenii marka banaankiisa laynoogu xidhmo candleka ku xiga waxaynu u baahanay inuu soo taabto open price mataqaanaa halkeenu calaamadsanay open pricekeena markuu candlekani yimaado uu inoo taagareeyo mataqaana inoo taabto and then maxaa dhacday pricekeeni in kor aynu ga trade garayn so waa maxay in trigaaga bartan dhigo stablosagana halka dhigo and then tb-gaaga iska suga insha allah halkaa ma isla fahanay okay bal tusaalaha labaadna isla eegno bearish change state of delivery-ga ama bearish ob-ga isla eegna isna waa maxay price baa socday bullish buu soconayay soo maaha bullish ma u soconayay candlekii baa liquidity-geeni qaaday waxaa qaaday candleka qaaday liquidity-gaad calaamadinaysaa candleka qaaday baad eegaysaa candlekan baa qaaday and then candlekan qaaday baynu calaamadsanayna maxay open pricekiisii baynu dhiganaynaa maxay calaamadda ama laynka ob-ga ama maxay change in state of delivery-gaan dhiganaynaa intaa markaanu dhigano maxaynu sugaynaa in banaankiisa laynagu xidhmo candle full body yahay inuu noogu xidhmo and then maxaa dhacday inuu candlekeeni inoogu xidhmay banaankiisa maruu kale banaankiisa inoogu xidhmo waxaynu sugaynaa maxay priceka inuu inoogu soo laabto ob-geena dib ugu soo noqdo then marka ob-geena dib loogu soo noqdo ama change in state of delivery-geena dib loogu soo laabto and then maxaynu kusoo trade garaynaynaa to the low ilaa maxay liquidity-geena kusoo sokeeya so qaacidadu waa intaas intaa ma isla fahanay ob candlekuna qaabka u shaqeeyo haddaba waxaan isla eegi doonaa bal tusaalayaal nool iyo qaabkaan ugu trade garayaan waanu isticmaalo okay bal tusaalayaashii maan isla eegaynaa markaa pricekeygina wuxuu joogaa soo maahan fair value gap buu joogaa sug pricekeygina wuxuu joogaa maxay fair value gap buu joogaa waa ka bartay noo calaamadsan so pricekeygina markuu fair value gap ka joogo haddaba halkeenu ob ugu wacayna bal in u baahan in isla fahanno hortu saan horeyd kusoo sheegay liquidity-gee baynu u baahannahay inaynu calaamadsanno soo maaha horta waa number kow waxaynu calaamadinaynaa mar walbaba aanay shardi labaad soo raacaynin liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday halkaan isla fahanno maha alla kalaa qurux badan kan kalaa ka qurux badan ma odhanaysid waxaad eegaysaa liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday so mid kale aad uma eegaysid
mid mid baa iga qurux badan mid kale iga qurux badan ha odhane liquidity ugu sarreeya ama ugu dambeeyey ee la qaaday baad calaamadsanaysaa. ma fahanteen ee jihadaada ah. soo markaad u baahan tahay, markaad jihada tusaale kale aad rabto inaad pricekan uu kula muuqdo biaskiisu sel, waxaad u baahan tahay liquidity mataqaanaa lagu qaado sare baad u baahan tahay. ma fahantay buy side liquidity in lagu qaado baad u baahan tahay. haddaad priceka kula muuqdo ka war isna bearish aad kula muuqato rabto inaad bullish garayso pricekanana maxaad ka rabtaa isna in lagu qaado maxay kan waa kii bearishka wax rabaa price inay soo salgarayna soo maaha. waxaad u baahan tahay in lagu qaado buy side liquidity. price-keenana waa maxay waxaan rabnaa inaynu bullish ka dhigno waxaan u baahan nahay in laynoo qaado maxay sell side liquidity. meel isla fahnaynta shardigaasaad ka eegaysaa marka liquidity ugu dambeeyey haddaad salgaraynaysana ahaa mataqaanaa buy side liquidity-ga, haddaad buulgaraynaysana liquidity ugu dambeeyey sell side liquidity-ga baad eeganaysaa. haddaad aad salgaraynayso waa maxay waxaad eeganaysaa buy side liquidity. haddaad aad rabto inaad buy garayso waxaad eegaysaa sell side liquidity. haddaad rabto inaad salgarayso waxaad eegaysaa buy side liquidity. intaasun gebigiisuba weeye. okay naga tirtiro kuwan naga tirtiro sorry. okay haddaba price-keenan waxaynu haysanaa marka liquidity waynu eegaynaa marka la qaado. so indhahaaga bal shardigii haddeer aan sheegay bal ku eego waxaad tahdaa liquidity ugu dambeyn la qaaday waa liquidity-ga. markaasaynu balaynu ka wada hadli doona. so anuna aan calaamadiyo inaan waqti badeed ka cunin baan rabaa. okay liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday ugu sarreeya waa kaa. soo ma arkaysaan liquidity la qaaday waa kee waa kan oo liquidity-ga ugu sarreeyaya. dan waad calaamadinaysaa marka. maxaad ugu calaamadinaysaa waxaad ugu calaamadinaysaa asabaan. marka haddaba liquidity-geena ugu sarreeya aynu calaamadino waxaynu eegaynaa haddaba kandhalkee baa qaaday sugaan soo dhoweeyo indhahaaga. haddaba kandhalka liquidity-gan qaaday waa kee ama haygan liquidity-ga qaaday waa kee kandhalka qaaday waa kee. kandhalka qaaday waxa weeye haddaad isku daydan isku day haddii kalena kandhalka qaaday waxa weeye kandhalkan weyn baa qaaday. soo ma arkaysaan kandhalkaasaa qaaday liquidity-gani keebaa qaaday waxaa qaaday kandhalkan. dan kandhalkaasna calaamadinaysaa marka open price-kiisii. kadhakan open price-kiisii me waa kan halkana open price-kiisii waa kan. halkan maxaynu bixinaynaa ob ama maxaynu ugu wacaynaa change in state of delivery. okay waa maxay kan waa bearish ob-geygii marka. so kan waa maxay waa bearish ob ama maxay change in state of delivery ob-geeni kadhalkeeni weeyaan. marka halkanu calaamadinaynaa haygiisa ma wigiisa lowgiisa maaha waxaynu calaamadinaynaa open price-kiisa waad calaamadinaysaa. okay markaan calaamadino waxaan u baahanay kandhal banaankiisa ku xidhma. kandhalkeebaa banaankiisa ku xidhmay waxaa ku xidhmay kandhalkan. kandhalkabaa banaankiisa ku xidhmay. openkeeni waa kan banaankiisaba ku xidhmay. dan maxaynu u baahan nahay kandhal inoogu soo laabta oo deetana intrigana inoo furan. maxaa inoo yimid waxaa inoo yimid kandhalkan baa inoogu soo laabtay. kandhalkan baa ob-geeni kusoo laabtay ama maxay change in state of delivery kandhalkeeni waxaa kusoo laabtay kandhalkan. aan dan waynu ka tirar garaynaa marka waynu ka sal garaynaynaa meeshaas. halkaan isla fahanay شغاش لمنا فاهمين وي قلت سؤال بعدنا نسلق ان شاء الله. وي سؤال بعدنا نسلق انا وحويا لعقتن الناستاك 100 كا برسلي دونا تريدان مالدو ترك قاعتay waxaad eegtaa haddaba shardi intii yara ka dhex eeg intaa liquidity ugu dambeeyay ee la qaaday ma yahay. liquidity ugu dambeeyay la qaaday ishaada ku eeg. then haddaad ishaada soo qabatay markaba waad fiicantoo liquidity-ga waad ku fiicantoo liquidity engineer waad noqon kartaa. so okay liquidity-geenu ugu dambeeya la qaaday ma yahay waa kan. liquidity ugu dambeeya la qaaday waa maxay waa short term lowgaasaa la qaaday. okay short term lowgaa markii la qaaday kandhalkii qaaday baan haddana u baahan in isla ogaano. so kandhalkii qaaday waa maxay waa kandhalkan selkaayo weyn baa qaaday. then open price-kiisa baan calaamadsanaya. markaan open price-kiisa calaamadsado maxaan ku calaamadinayaa waxa weeyaan kan waa maxay waa bullish change in state of delivery ama bullish ob baan ku calaamadinaya. so muxuu ii noqday haddaba egbal mid baa idii sheegaya kandhalkaas inta shay uu ii noqdaan kuu sheegaya. kow horta waa confirmation buu ii yahayo in price-kan uu kala noqon doono waxaan ku confirmation garaynayaa in liquidity baa laga qaaday. okay kandhalkii qaaday me waa kan. so haddaba liquidity haddii laga qaaday confirmation waa maxay waa in banaankiisa lagu xidhmo. haddii banaankiisa lagu xidhmo waxaan leeyahay waxaa dhacday change in state of delivery ama maxaa dhacday in price-keegaas reversal samayn doono. so miyaan isticmaalayaa mss iyo waxa may halkan market structure waa la odhan doonaa laakiin nagu maynu isticmaali doonaa waa maya. so tusaalaheennii horeba usoo qaadanay umaynaan isticmaalin wax market structure la yidhahdo umaynaan isticmaal. so keenana inoo noqonaya wixii inoo dhanbaba
kana market structure-kii iyo confirmation-kii iyo entry-gii waxa bay noo noqonaya. Okay, markaynu helno waxaynu u baahannahay banaankiisa inuu candle ku xidhmo weliba body ah. Candle-ka maa si body iyo banaankiisa ugu xidhmo, and then waxaynu u baahannahay candle inoogu soo noqdo marka. Okay, kana bay inoogu soo noqday isla candle-kiisii saddexaad baa inoogu soo noqday. Okay, isla candle-keeni saddexaad baa inoogu soo laabtay, and then maxaa dhacday in price-keeni maxay kor noo tuuray in badan 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 welibana aad u badan, laakiin anigu meelaha aan uga degay. So I think so meelaha aan uga degay trade. Okay, tusaale saddexaad baan isla eegna isagana, tusaale kaloo saddexaad aan isla eegno. Okay, tusaale labaad isla eegaynaa markaa, bal tusaalahan labaadnana tusaalaha saddexaad, sorry, tusaale saddexaad baan isla eegaynaa. Bal tusaalaha haddaba waxaad ii soo saartaa liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday. Indhahaaga ku eeg bal qiyaas liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday. Indhahaaga bal ku eeg. So haddaba haddaan calaamadiyo liquidity-ga ugu dambeeya la qaaday waa kee? Waa kan. So ma arkaysaan liquidity si ugu dambeeya dhacay price-keena ka dhacay waa kan. Haddana xataa kan qaadatay mataqaana aad tiri kanna wuu yahay waa saxsantay, laakiin keena ugu wanaagsan ugu saxsan ee boqolkiiba boqol saxsan waa kee? Waa keena ugu dambeeyey, mid kale ha eegin. Okay, liquidity sweepkeena la sameeyey waa kan aan soo dhaweeyey welibana candle-ka qaaday waa candle-kee? Kana mise waa kan? Okay, kanaa qaaday black-ga soo ma? Candle-ka black-gaa qaaday baad calaamadaysa haddana open price-kiisii, maadaama bearish yahay open price-kiisi wuu kor buu inaga xigaa marka. Then maxaynu rabnaa in laynoogu soo laabto candle-keeni waa maxay? Waa OB candle-keenii. OB candle-keeni waa kan. Waxaan u baahan lahayn in laynoogu soo laabto. Okay, kan inoogu soo noqon. Okay, price-kan waa soo geliyey baan malaynaya Telegram-ka uu yaalla, laakiin waa kii ugu dambeeyey haddeer yaallaba. So okay, price-kaygan stability-gu meelahan uu ahaa, halkaas uu ahaa. Okay, waxaan dhiganaynaa stability-keena bartaa, and then target-keeni waa maxay? Adiga iyo dee halkay ku soo celisaa. So ama meelahan uu ahaa. Okay, meelahaas uu ahaa marka. Then maxaa dhacday? Price-keeni wuxuu ku soo laabtay OB candle-keeni wuu ku soo laabtay, and then maxaa dhacday inuu price-keeni toos uga baxay halkaasi. Okay, waan u malaynayaa inaad si fiican idinku sharaxay intii karaankayga OB candle-ka ama change state of delivery candle-ka. So intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.